dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabadda u dhidubeen allow dhow ودرارتي للتاجي ردبي على كيني دلان كينو نبض كسد ودرارتي للتاجي ردبي على كيني دلان كينو نبض كسد وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعيها وطني قدبتها العودو وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعيها وطني قدبتها العودو Somaliland العودو فرح محمد فارح وينك يا مين الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت تاريخ الطهاي تدبي طوانكي مي كونيو اللبا كونيو قبيلة لباطن وحافر حد نوعه إلى نكسر دوينا هالكن وفد بلارن وشرف له وكصعدا دولة إنه وراها النهاية جيبوتي وفد جاس وفد ويمي إلى كقريب جران مناسبة سديد يوتبان كمبي نصدق جورة كسور كتي قبل مدة إنه الله صار نقطة جمهورية الصومال الله صار نقطة حرية دي wafdigaas oo ka kooban 11 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Djibouti ay u hayaan xukuumadda iyo shacbiga Djibouti ay u hayaan jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa una qiimeynaynaa una qadarinaynaa wafdigan walaalaha aynu nahay ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May waxaan idin leenahay ku soo dhawaada wadankiinii labaad gurigiinii labaad caasimaddiinii labaad ee Hargeysa ee Somaliland waxa hogaaminaya wafdigan xogayaha guud ee ra'iisul wasaaraha Djibouti mudane Nagiib Abdallah Kamil oo ayaa wafdiga hogaaminaya isagaan ku soo wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaweyaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweystan la soo dhaweeyay dhulkeenii labaad ee Somaliland oo aanu nimidnay xafladaasi sanad guuraha 18 May jamhuuriyadda Somaliland oo ka qayb gali doona hadii la yiraahdo Britole waxaweyaan laba dal walaala yaan nahay inaan nimaadno waajib bay nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelana soo diray invitation ka madaxweyne Muuse Biixi ayaan ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kala hadhama jirto odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen markaasi aad baad u mahadsantihiin dhulkeenii waxaan nimidnay labaad